السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلهي مهدي دان اسكو سو لابنay mar labaad mar saddexaad iyo mar afraad iyo marar kala badan dii alla idmo asxaabay haddii aad channel ku cusub tahay subscribe like share waa xagaaga wixii soo jeedinayna waa xagayga maanta waxaan rabaa inaan idin soo sheego qiso aan la yaabay nin qaa'in ah ummadda dhan ka yaabtay waxyaalaha uu ku dhaqmay waxa uu sameeyay baan rabaa inaan idinla wadaago haddii alla idmo asxaabay qisadani waxay ka dhacday waddanka France maanta waxaan aadaynaa soo raaca France aan teginaa maanta qisadani France ay ka dhacday waxay ka dhacday tuulo yar oo la yiraahdo Geeri bay ka dhacday qisadan waxaa maxay to isqabay gabar iyo wiil dhalinyaro ah gabadha iyo wiilka waxay maxay ahayd ay xiriirkooda soo jiray ilaa iyo markii ay dhalinyarada ahaayeen inta saxaan gaari ka hor bay is yaqiineen waxay ahaayeen dad ku soo koray maxay ahayd tuuladaas Geerida laftigeeda ah bay ku soo koreen gabadha waxay ahayd gabar u shaqeysa bangiga wiilkuna wuxuu ahaa wiil oo u shaqeeya meeshan oo hay'ad buu ka shaqeynayo oo technology isgaarsiinta kombiyuutarada buu ka shaqeynayay wiilkuna gabadha waxaa la oran jiray Alexia wiilkan waxaa la oran jiray Jonathan Duvel baa la dhihi jiray wiilkana akhyaaray qisadatan waa qiso yaab leh yacni ma ogaan kartid qofka qaa'inka ah qofkaasi waa gabadhii Alexia ahayd iyo wiilka Duvel ahaa oo maxay ahayd isqabay marka ay xiriirkooda jacayl intuusan maxay ahayd problemka imaanin ka hor kuwaasa halkaa dadka soo shaashada ka fiiriya waxaa dhacday wiilkan iyo gabadhan xiriirkooda waxaa u yimid problemkaasoo ah awlaad la'aan gabadhan iyo wiilkan wax awlaada isuma aysan dhalin dhakhtarkii bay tageen waxay dhaheen waxaan rabnaa inaan wax dhalno wixii ilaahay keenaya qofna ma hor istaagi karta laakiin dhakhaatiirtii way ku dadaaleen inta tabartooda ah way isku dayeen maxay ay daaway qaateen wax kastay sameeyeen ugu dambeyntii 2016 baa dhakhtarku wuxuu ku yiri wax rajo ah oo leedihiin haba yaraatee inaad awlaad dhashaan ma jirto arrintaas waxay ku noqotay maxay ahayd niyad jab aad ah weliba dhanka ninka wiilkii Duvel ahaa bay arrintaas aad u dhibsaday markii arrinta halkaas marayso bay maalmaha ka mid ah bay murmeen labadooda waxay tiri waa kaa tagay aniga ilmana isku dhalimayno intaas xiriir waan soo lahayn waa kaa danaysanaya hay tiriye inaan kala tagnaaba go'aansada waa anigu bis waayaba dhankayga jacaylku ay ka soo dhamaaday ninkii uu xanaaqay gabadhi derbi uu ku dilay derbi walaa waa ninka xoog badan waa ninka soo sheeko dhaafay asxaabay waxa labadooduba subaxdii hore waxay aadi jireen waxay labadooduba ay ma aragtay ay saaxiib ku ahaayeen subax orodka jogging bay sameyn jireen labadooduba ay maantay subaxa walba ay tuulada dhexdeeda distance dheer bay isu raaci jireen labadooda iyagoo jogging sameynaya bes sheekada markay halkaa marayso wiilkan maalintan dambe way murmeen intaysa orodka aadin gabadhi bay murmeen ninkan dee wuuba ka takhalusaday gabadhan jaawuuba dilayba derbiga ku dili doonaa ninkan magaalada dhan way ogaadeen waa la yaabay aaway gabadhii maxaa ku dhacay adinka shaaka dhaafine wiilkii Jonathan ahaa wuxuu sameeyey markii uu maxay ahayto xilligii ay soo noqon jirtay la gaaray ninkan ugu qaariji gabadha xilliga ay soo noqon jirtay markii duhurtii la gaaray buu wuxuu wacay baliiska isagoo dhahaya xaaskaygii baan maqan oo weysanahay ma garanayo meelay jirto waa la raadiyey baaritaan baa la galay tuulo iska yar bay ahayd waa la waayay gabadha meel ay jaan iyo cirib ay dhigtay dadkii tuulada waxaa kusoo kordhay qalqal iyo cabsi dadkii subaxoo orodka aadi jir macaan guryahay ku laabteen waxay dhaheen gabadhii wixii ku dhacay ma naqaano ilaa arrintan aan ogaano qof walba gurigiisa ha ku ekaado baa la yiri waa la joogay helicopteraa lagu baadigoobay maxay ahayd waxaa lagu baadigoobay doonyo wax walba cir iyo dhul gabadhi meel ay jaani cirib dhigtay waa la waayay baaritaanku markuu socdo ninkan waa qaa'inka ugu weynaa on akhriyo adduunyada intaan qaa'in arkay ooyin buu jabsanayaa baroor qof walba way la yaabay yacni ninkan ooyintiisa maba kala go' ma leh
waa iska oynaya maanta oo dhan naagtaydii indhahaygii bay ahayd nuurka indhahaygay ahayd waxba ma arkayo qoraxdii baa igu duntay habeen baan fadhiyaa indhahii baan beele wuxuu sheegay ninkaas maxay ahayd u tiro malahan waxa hadal adkid ka soo baxay ninkaas qaayinka ah maalinkii dambe maalin maalmaha ka mid ah baa waxaa soo helay qolo maxay ahayd oo u tababaran si qaas u tababaran dadka maxay ahayd la waayo baa waxay soo heleen gabadha meydkeedii oo la gubay bay soo heleen gabadha meydkooda la gubay soo heleen markay soo heleen waa loo soo sheegay ciddii waxa tacsiibaa loo sameeyey baroordiiq asagina halkii ku ooyinaya ooyintiisu jabsaday inta arrintaas ay socoto baa waxaa dhacday nin ka mid a dadkii biliiska ahaa baa wuxuu yidhi gacmahan maxaa kaaga yaala xagtimo iyo waxbaa ku yili gacantiisa calaamado markaasuu wuxuu yidhi aniga iyo xaaskayga markaan murano waxay ahayd qof carab badanoo way xagan jirta laakiin weliga iyo xaaskayga waxba ma u geysan aniga intaasna waa loo qoray sheekadii aad ku daalin asxaabey markay halkaa marayso baa waxaa isugu soo baxay magaaladii maalin maalmaha ka mid a qisadani waxay gilgishay faransoo dhan bay gilgishay qiso aad u xun bay noqotay waa la isku soo baxay toolad yareed aamusnaan daqiiqada aamusnaan ah baa la sameeyey lama hadleen wadadaa la sugu yimid dad dhan ilaa 10,000 baa isu soo baxay tuuladii waa la soo baxay aamusnaan baa meesha maxay ahayd lagu maraya baroor diiq gabadhi gabar la jecel yahay ahayd qof aad u naxariis badan oo tuulada dhan laga yaqaanay ahayd bas markay sheekadu halkaa marayso gabadhi baroor diiqda loo sameeyey ninkaa lagama harin weli waa la daba socday waa la daba socday maalin maalmaha ka mid a maxay ahayd biliisku waxay wareysteen dariska ninkaan marka gabadha maalinta uu dilayo wuxuu yidhi maanta dhan guriga kama aana bixin buu ku yiri biliiskii dariskii baa waxay sheegeen inay baabuurkiisa guuxiisa maqleen in uu ninka kan uu subaxdaas iyada ah uu baxay maalintaas iyada ah waxaa loo geliyey maxay ahayd warbixintii laga diyaarinay bay ku jirta taasna bas waa la soo baxay meesha gabadha meydkeeda laga helay baa waxaa lagu soo arkay raadka taayirka berigaas way soo masawirteen biliiska iyo baabuurka guriga yaalla baa iskeenay taayirkii meesha lagu soo arkay iyo gabadha meydkeedii go' ku daboolay oo maxay ahayd go' guriyeed ahaa wixii bay isku geysteen ninka waxaa la yidhi waraysi baan maxay ahayd aan kaa rabnaa noo kaalay uu tagay meeshii biliis ku tegay waxaa la yidhi haye waxaan ku weydiinaynaa maalin heblo waxaa nagu tiri maxay ahayd guriga kama aana bixin waxaana soo ogaanay inaad guriga ka baxday oo baabuurkaaga GPS kiisa baa noo sheegay inaad guriga ka baxday marka wiilow si fiican wax noogu sheeg wuxuu yiri oo inta buu jabsaday isla markii aniga xaaskayga waan jeclaa weligay inaan waxba dhibo ma rabin weligay inaan saayeelo ma rabin anaba iska calaacalay haye waxay igu tiri waan kaa tegayaa kelmaddaas baa qalbigayga aad u gubtay buu yidhi inay gabadhi aan jeclo oo intaas aan daba socday ay tiraahdo waan kaa tegayaa sababto ilma la-aan daraaddeed ilmo ma isku dhali karno waan kaa tegayaa marka ninka dembigii wuu qirtay maxkamaddii wuu ka qirtay dembigii wuxuu yidhi xaaskayga derbigan ku dhuftay way sooxday ugu talagelin waa xanaaqi waa igu simin waayey saas daraaddeed baan derbiga ugu dhuftay maxay ahayd marka waana ma aragtay waxay ii noqon weysay in aan ma aragtay aan sheego argagax bay igu noqotay ooyinde siduu sii wadaa weli wuxuu ku soo gabagabeeyey hadalkii anigu xaaskayga waan dilay waxaa igu samaynaysaan igu sameeyo waxaana u dilay in ay nolosha igu cidlayso ay nolol kala samaysto daraaddeed baan u dilay buu yiri ninkii doveel ahaa asxaabay marka adduunkan aan saaranahay waxyaalo fara badan baa maalin kasta ku arkaysaa dad badan oo isqabo oo awlaad isu dhalin way jiraan balse awlaadda ilaahay baa haya marka waxyaalaha maxay ahayd iyo dadkaan waddamadan aan joogin ee qurbaha ah lagu arkayo waa waxyaalo aad iyo aad ma aragtay ula yaabaysid oo ula adiga dhanba aad noqonaysid qof markaad akhrinayso qof waxaa noqonaysaa waabad qiiroonaysa sheekooyinka qaarkood markaad akhriso
marka asxaabey maanta qisadaas aan la soo yaabay baan idinla wadaageen go'aansan inaan idinla wadaago bal idinkuna haddii aad waxyaalahan iyo wax lamida maqashaan bal idinkuna ila soo wadaagasaan anugu idinla soo walaagay hana laga fakiro dad waxaa jira fara badan oo awlaad aan isu dhalin oo kala danaysta marka shaydaankuisa been idiin sheegin sida ninkaas shaydaanka beenta uu sheegay oo kale awlaad ilaahay baa haya haddii maxay ito lisjeceli waa laisla joogayaa haddii maxay ito lugayshu waa la kala tegayaa wax dhiba ma leh laakiin shaydaan iyo qof islaameed oo nool oo naftiisa u qoonso waa dhibaato barnaamijkeena maanta halkaasaan kusoo gabagabaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu